war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda deegaanka biyaha iyo beeraha ee dalka Sacuudiga ayaa looga hadlay sababta ka dambeysay in dawladda Sacuudiga ay dib u soo celiso 27,000 oo neef oo ari oo kamid ah xoolaha Soomaaliya ay sanadkan u dhoofineysay dalkaasi Sacuudiga. qoraalkan ka soo baxay dawladda Sacuudiga uu ku saxiixnaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Azhar oo ah maamulaha maxdirka xoolaha ee Sacuudiga ayaa lagu sheegay in xoolaha Soomaaliya lagu tuhmayo inay qabaan cudurka Rift Valley. xoolahan ay dawladda Sacuudiga ay sheegtay inay qabaan cudurka Rift Valley ayaa dhawaan waxa laga soo celiyay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga kadib markii baaritaan lagu sameeyay. hadalka dawladda Sacuudiga ka soo yeeray ayaa imaanaya xilli dhawaan shir jireed uu ku qabtay magaalada Muqdisho wasiirkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha Sheekh Nuur Maxamed Xasan oo shalay xilkan wareejiyay uu sheegay in dawladda Sacuudiga ay sanadkan xayiraadii ay ka qaaday dhoofinta xoolaha Soomaaliya isagoona wasiirka xilligaasi beeniyay in xoolaha Soomaaliya ay qabaan xanuunka la yiraahdo Rift Valley. dawladaha Soomaaliya iyo Sacuudiga ay arintaasi ay ka wada hadleen. dalka boqortooyada Sacuudiga oo ah dalka naga dhoofsada xoolaha ugu badan ayaa nasiib darro bishii September 2016 hakiyay inay qaataan xoolaheena. Sacuudiga waxa ay xayiraadooda ku sababeen in xoolaha dalkeena ay qabaan cudurka loo yaqaano Rift Valley. hase yeeshee wasaaraddu waxa ay xaqiijisay inaanay qabin cudurkaas la sheegay. 24 Agost 2017 ayaa shir la yeelanay wasaaradda deegaanka biyaha iyo beeraha dalka Sacuudiga. shirkaasi waxaa ka soo baxay qodobo muhiim u ahaa dalkeena ay ugu weyneyd in Sacuudiga qireen badqabka caafimaadka iyo tayada xoolaheena. shir labaad ayaan isu nimid dawladda Sacuudiga 24 ilaa 25 Abriil 2018. shirkaasi oo aan ku guuleysanay in xayiraad laga qaado xoolaha Soomaaliya. si kastaba dalka Sacuudiga oo ah dalka ugu badan ee Soomaaliya looga dhoofiyo xoolaha nool ayaa sidoo kale bishii September ee sanadii 2017 xayiraad saaray in xoolaha nool loo dhoofiyo dalkiisa taasi oo ku sababay Sacuudiga in xoolaha Soomaaliya ay qabaan xanuunka la yiraahdo Rift Valley. Cabdi Fataax Macalin Nuur Somali Cable Muqdisho.